Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan halkan kaga hadlayaa aniga oo wata magaca ciidanka asluubta. Waxaan halkan kaga hadlayaa dhacdadii shalay ka dhacday kawaanka malayga israsaasayntii halkaas ka dhacday aan rabaa inaan faahfaahin fiican ka dhiibo maadaama odayaashii halkaas marayay ay dhaheen annagana loogu dan lahaa yaan rabaa wax runa inaan ka sheego laba carabna maliyo shalay waan hadlay laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa hadal waa mergi oo hadba meel u jeesta ciidanka asluubtu faalan ka dhiibaya waa ka warbixinaya maadaama taliye ciidanka asluubta ana ciidanka asluubtu waa ciidan qaranka Soomaaliyeed ayay meesha u joogaan hawshii loo idmadayna hayaan inta gooboodo ay degan yihiin hawshaasay ka wadaan uma joogaan inay qof ku dhibaateeyaan uma joogaan inay qof Soomaali ah ku dilaan muwaadin Soomaali inay ku dilaan uma joogaan darajo kastaba ha wato ama ha soo wara ama ha soo mar ama hadda ha haysta darajada inay ku dhibaateeyaan uma joogaan waxay u joogaan inay ilaaliyaan amniga qaranka iyo ummadda gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhaxal lagu hayo gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhaxal lagu hayo qof muwaadina oo target ay u yihiin ay amar ku qabaan inay dilaan ma jirto mana dhici karto tiri aniga la igu sugaayay meesha kelmadda ayada raali gelin ha ka dhiibeen waxaan leenahay waliba mas'uuliyiintii wadanka soo martay meesha ugu sareyso arimaha ku hadlay ciidanka waa ciidankoodii raali gelin ha siiyeen ciidanka asluubta waa ciidan aan qabiil u shaqeynaynin waa ciidan aan arimo qabiil ka qayb qaadanaynin una tagaynin kaliya ku eg ciidan qaran inay yihiin muujinayo astaanteedana wato waay taas waa shaqadii ciidanka asluubta madaxda aan raali gelinta ka rabnana ayagu ma sugaynine kelmadda ayada haday cid u sheegtay wataas waxaan doonaynaa ciidankoodii baan nahay inay raali geliyaan ayaga nabadgelyadooda ilaalinayna ummadda nabadgelyadeeda ilaalinayna dalka waxa yaala waa ogtihiin wadada kaliya ugu nabadgelyada badan halaha yarka aan degan oo la maray wadada kaliya dalka ugu nabadgelyada badan waay waxaan codsanaynaa annagana inaysan dacayadeynin waxaan ahayn ay nagu sheegin askartoodii baan nahay ayagaan ilaalinayna waxaan codsanaynaa cid meesha maraysa inay sheegto la hubsado cid kasto maraysa noocu yahay in la hubsado ayay meesha u joogtaa askartu adawga dalka joogayna ee ku jira oo dhibaatada maalin walba ka wado argagixisada alqaacidada al-shabaab ayayna ilaalinayaan oo ummadda ka ilaalinayaan xafiisyada dawladda ka ilaalinayaan maahane ma ilaalinayaan nin Soomaali oo wadadiisa iska hay inay dhibaateeyaan uma joogaan midaan hal la qaato runtii tan waay hadalka runtiisi waa tan hadaan run la sheegin been qarsanay Soomaalidu tiraahdo siday wax u dhaceen aan ku daraaya gaariga Cabdibilaha maray askarta waxay ahayd inuu istaago oo yiraahdo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud aan wadnaa askartu jidkay u furi lahayd waa la soo dhaweyn lahaa ma dhihina gaariga waa gudbay distan dheer baa u dhaxeey markuu gudbay waxay joojiyeen gaarigii dambe si ay u hubsadaan baabuurkii gudbay dib u rasaas u soo riday u soo xabaday kaamira jirta ummad badan joogtay magaalada weeye wax cad waay waxa aniga aan sheegay dhibaatada Cabdibilaha sameeyay wuxuu bedeli gaaray ninkuu waardiyeynay hadii cid xabad kugu soo rido waxay taadan ogeyn oo xabad kugu soo rido adna xabad haysatid faataha lama aqrinaya xabada loogu jawaaba arrinka sidaas ay ku dhacday xabadu ma ahan inay asluub bilowday ma ahan inay cid ku qaldantay gaarigay joojiyeen Cabdibiluhu inuu istaago sheegay ahayd ay dhahaan mas'uulkaasaan wadnaa haddaba jidku maray waa loo furay abarta waa la soo dhaweey sidii madaxweyne asigoo ah hadeer yaa gacmo loo lulay oo jidka ku maray
marka kalena haday sheegi lahaayeen saas u mar la habeenii maalin way maraan madax umada mas'uuliyiinta siyaasiyiinta ayna ka masuugin askariga jidka taagan inay isu sheegaan ayna ka masuugin oo ay isku dayeen inay xoog ku maraan war aday nabadgelyadaada ilaalinayaan umada ilaalinayaan isu sheeg waxba kuma dhihi kara askariga waa ku soo dhaweynaya laakiin hadii adna aadan isu soo sheegin ama aadan is sheegin waa laba kelmadood isu soo sheegin ama aadan is sheegin staafkaagina meelan dhaweyn uu taagan yahay asna una wax sheegin muxuu wada staaf ugu yahay staaf wuxuu yahay inuu istaaga baabuurka meesha askartu ila war madaxweynihii horaan wadnaay wadada u fura gaarigiisa lama joojiyeen dhabti inaan kala leexano ma idaan colaad u qabno gaar ah oo meesha u joognaa ma jirto shaqo qarana u joognaa hanugula tixgeliyo asluubtuna dambiile ma askari meel taagan oo qaran oo waardiye u taagan oo calaamadiisi wata ma aha kuwa yaani meesha taagan in la yiraahdo anigu igu sugaayeen taas ayadaan nama qabato meeshana waa nugula ogyahay burcadnimo kuma deganin ciidan qaran baan nahay oo meesha degan oo aagaas lagu ogyahay cid walbana waa nugu ogta noo ogolaada inaad istaagtaan oo sukaana sheegtaan in la yiraahdo askarigi waa dambiile hala baaro dambiile ma aha hadduu askariga dambiile ana dambiile aniga hala baaro anna waxaan ku hadlaay waa arki doontaa ساكوية وارديان صارني وحاني إلالي عدو إلالي حفيسيدان إلالي قارقة قرح وضع إلالي خبصو إلالي ننك محيه هيتو إسو الصوحي الحريو إنو غر حرب كإلالي تيبو تاقي هبيني مال دنبيلاتها إن لوغو درماه مدى كالي وحاميش مراي مدحويني هوري حسن الشيخ محمود madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu xasuusnaado askartiisa inay tahay kuwa shalay madaxweynaha u ahaa maantana uu raadinayo inuu bari u noqdo inay tahay inuu xasuusnaadaan ka codsanaynaa waxaan leenahay cid kastoo meeshaas marayso oo muwaadina oo run sheega askartaas waa dhibaataysan yihiin in gacan la siiyo waxay ilaalinayaan adowgii dalkan qarxinayo oo la soo kuusay oo 2000 oo nin tiradooda gaartay yaa meesha ku jiro ilaalinaya hadii meesha ayda la furbad xeebteeda loo soo maray xabsiga waa la qabsanaya hadii birta sokol la qaado maxkamadaha la galay waad ogtiin hadda ka hor inta loo soo labisay darajo ciidan Soomaaliya yaa maxkamadaha la weeraray annagoo tiika aan baqaadayna waxaan ku amarnay darajo kasta watay ninka idin soo marayo hubsada